وحاس الدم يسكسر الله ولا سوق ولبا لعكتنا وسيب حنا يدا مشكور إن ديننا تيدي كليات خلود لقى شيء واد ما سنتين حاسكي لا شوكتي واد ما سنتين لعكت وكاس نبت قليو برتنا صون نقو أيام تنبيه أدو سكر داي إن معلمين رجع إن يجوري تجان بالعان أما جبر حديقيان أيضا كل جند يجوري أي جوكتو معلم كين أونية هاي أدبي أدعى سؤالات كذا نقص ونقدين. تكلم شرتوا حوي معلمين تن إن جوريها يمادا قاربا بين بيشجع. المهي ولا قفلي إنه أودجو year 8 يلا قاعد year 6 أودجو يوم year 7. سيد هو يدور أكتب بوجين لا صحيح. qofkii Allah uu khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa maanta tilmaamta wanaagsan qaado oo waqtiga qayb kamid ah ku maalgasho barashada diinteena macaan adoo gurigaaga ama goobtaada shaqada jooga da'da doonta ahaa maanta iska diiwaan kali markaska online wax looga bartay Al-Mufiid duruusta online ka Al-Mufiid aad ka helayso waxa kamid ah barashada Qur'aanka Kariimka barashada axaadiista tawxiidka iyo adabkaba ardada uu doonaya markasku way kooban tahay hore u gaar oo hadaba isdiiwaan kali wixii faahfaahin dheeriya fadlan ka wac lambarada shashada kaaga muuqda bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalaheeyow aad iyo aad baan idin salaameynaa meel kastoo adduunka joogtaan maanta waxaan boqosho ugu nimid Sheekh Saciid Raage gudoomiyaha Olive Crescent International School oo nagu casumay beertan quruxda badan inaan wareysan kaga qaadno sheekhana waxaan ugu nimid wareysigan maadaama asaga shaqadiisa qayb kamid uu ka hadlayo maadaama sheekhu macallin yahay in badanna iskuulaad iyo kicinta arday uu ku soo takhasuskiisa yahay uu ku soo guday jiray ayaa waxaan rabnaa inaan ka wareysano mowduuc u qalma macallimiinta dhanka diinta wax ka bara tuition markii la yiraahdo iyo dhanka kale macallimiinta aan islaamka ahayn ee guriyaha taga ee tuition ka baxsha marka macna guud baan ka rabnaa sheekh inuu naga siiyo tuition iyo macnihiisa iyo maxaa la yiraahdaa ardayna dadka hooyooyinka ama gabdhaha bilcaamaha ee guriyaha loogu tago ee cilmiga diiniga la baro ee macallimiinta u tagaan ee muslimiinta quraanka barayaan ama fiqh ama hadiis ay barayaan ee hooyadii kaligeed guri ugu tagaan ama gabadhii kaligeed ee guri ugu tagaan ayaantan aad bay arinkaas u soo badanayay waxaan rabnaa marka sheekha maadaama cilmiga guud oo wax ka garanayo iskuulna uu haysto macallimiin ay u shaqeeyaan laga yaabo macallimiintiisa xataa qayb kamida inay tuushinadaas wax ka baxshaan ama macallimiin ay ka yihiin marka barnaamijkaas waxaan ka rajaynayaa walaalkay ama walaashay inaad u sii gudbi doontid walaalaha kale cilmiga doonaya ama arinkan qaldan sameynaya guriyahooda aabayaasha Soomaalida guriyahooda macallimiinta ay tagayaan aan warba aysan ka haynin ayaan rabnaa barnaamijkan inaan daqiiqadaha soo socono sheekha la qaadano aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada sheekhana markooda ku soo dhaweyneynaa marka labaad maxaa keenay in tuition caruurta guriyaha lagu qabto maxaa faa'iidaha oo laga helaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرتو تويشن كوا سيف ذو حدين لفظة لنعو كوين كرا إن أساس أهان تويشن وحين نقول تلقى لي المو إن لك عكوفية سبجكو دكتو أما ماددو دكتو ومركا أباهن عاومات زيادة uga u dheer ta iskuulka marka iskuulkii inanku uu tagay ama inanta way tagaysaa markay laakiin maadadii lagu soo dhigay faciidii lama qabsanayso ama lama qabsanayo ilmo marka waxay nakaliftay in ilmahani inuu behind inuu ka dambeeyo ardayda inta kale aawadi marka in loo qabto qof guri ugu yimaado wax bara oo subject bara ma xuma in faa'iido badan way leedahay xasanaadna way leedahay لكن سلبيات أيام أنك كوارجنا كو سلبيات وجوه الرئيسة إن والدك اعتماد كاملة أيو صار يا معلم كان تويشن كرليجيا يعني وحو إسكوها لينا يا ما إسكوها لينا سهويدي أما به جوري تويشن بقى يشوجا سيدا أودد اللي هو أفلحية تاسوامد طلبات تذكر تويشنك بريا مرمر واجبات كي منزلية لو وصل هوم ورك إنه هذا جوريجا المها اللي صور راعي أيجي بقى المها وش قينية محمد مركا كأبور مية وحكا أبور مية المها إنه مسكحيا كوريني وايو
waa la soo sharaxay homework baa loo soo dhiibay macallinkii halkan mushaharada guriga ku qaadanaya loo keenay wuu ga shaqeeyay ilmihii wuu qaatay asagoo faraxsan berito macallinkii iskuulka u geeyay waa loo soo saxay hooyadii guriga fadhina waxay leedahay macallinkii iskuulka saxba ku soo dhiftay ilmihiina wuxuu leeyahay waaba la soo saxay waa la is dhiganaya marka cilada saddexaad uu leeyahay waxa weeye hadigoor ninkan tuition-ka dhigaya in wixii iskuulka uu ka rabay ma dhigo subject yani laga yaaba macallin aan weligii dhigin Cambridge system oo Kenyan system dhigi jiray inuu hada waan garanaya waxa year 8 Cambridge system-ka waan u dhigayaa ilmahaaga xisaabtii waa xisaab laakiin sida moogtay loo waajiho ee loo xalleeyo ay kala duwan yihiin marka ilmihii oo laga soo dhaadhiciyay concept-kii iyo mabda'ii year 8 Kenyan system ayaa loo soo hoos dhigaya warqad laga filayo inuu Cambridge system ka xalleeyo ma xalleen karo hadduu xalleeyana waa qalad isluubkii baa qalada macallinkaasi marka caynka qaladadkana way sameeyaan waxaan ka anagu taas kale waxaan idhaahnaa macallinka guriga waa inuu macallinka subject ee iskuulka uu la xiriira ta kale jirta waxa weeye macallimiintan in guriyaha yimaada qaar badan been bay sheegaan ilmihii oo laga filayay inuu u dhigo year 8 ayaa laga dhigay year 6 uu dhigayo ama year 7 sidii hooyadu u aragto buugiin loo saxsaxay so marka xaqiiqatan tuition-ku inuu noqdo ma aha xal daa'ima laakiin tuition-ku waa inuu noqdo wax temporary ilmahan wuu yara habsaamay hal soo gaarsiyo inta meeshii laga filayay macallinka iskuulka la qabsado hal laga daba shaqeeyo ta kale jirta waxa weeye in guriyaha hooyooyinka intooda badani lagama yaabo qaar badani inay daneeyaan ama ay garanayaanba waxaan meesha laga dhigayo taasina waxay kalifaysaa inay sidaan idin sheegay inay isku hadlays yani kaamila in macallinka la siiyo qaladka manaadee sideedaad ee la galana waxa weeye badbedel badan macallimiinta lagu sameeyo ha ardayga baa macallin baa loo keenaya imtixaankii waxa ka haray 2 week waa goordama la keenay macallinkii samaha macallinkii wuxuu arkayaa ilmahan asaasiyaadkiisu inayba maqan yihiin oo 2 week wax laga gaarsiin karaa ma jiro macallinkii markaa wuxuu ka fakiraya sidii ilmahan asaaskiisa u soo dhiso siduu hadhow halka ka sii wado imtixaankii baa imanaya yarkii 0 buu keenaya ciladu waa macallinka hal eriyo mid kala keen ilmihii marka macallinkii hore asagoon la qabsanin oo kii iskuulkana isla liitaan ayadna mid saddexaad keen ama mid afaraad keenaysa ama mid shanaad maxay noqonaysaa marka ilmihii way haabaya ilmahaasi marka meel fog ma tegayo qaladaadka in nalooga warramo macallimiinta ee sagaalaad marmarinaya adaa tirinay waxa weeye in macallinkan waxaaba u hanjabaya ardayga guriga jooga macallinkana wuxuu leeyahay shaqadaada yaa ku beeline yarkan yar halku asagu uu doonayo iyo levelku doonayo ku socodsi waxa loo baahan yahay macallinku inuu ilmaha ma ka shaqee oo tanna ka shaqee may adigu fakir su'aasha soo saar maxaan ku dhigay xasuuso yarkii markuu yara qayliyo miyuu hanjabo macallinka asaga baad moodaa in biyo lagu shugo qabow asaga baa marka u dhiibaya jawaabtii taasina waa qaladad aanu aragnay oo fara badan marka in waxaan leeyahay dadka tuition-ka inay iska hubsadaan koow manhajkan macallinka dhigayo manhajka iskuulku inuu isku mid yihiin 2 hadduu waalidku xitaa aanu garanaynin inuu asagu uu meesha fadhiyo intuu tuition-kaas u socdo hooyadii guriyaha imika da Kenya mara in house help baa wada jooga in guri la kariyo iyo in guri xaleel in cunto la kariyo iyo guri la fiiqay iyo maanta dumarkii waa laga yara in fududeey marka intuu macallinkaas joogo la fadhi hooyo ilmahan iyo macallinka waxaan jebin arag inaanu macallinkan ilmahan arrinta hawl yaraynaynin had dareemo macallinkani ina cid baa ilaalinaysa ila cid ma jirto muraaqabad marka anigu cayn kastaan u arkaa tuition aad baad u mahadsan sheekh waxaan la gashay durustaadii iyo iskuulnimadaadii iyo macallimadaadii
علم فربضان بعد ماشي هسكسو كردسي ولا لا فربضان أم والد فربضان وحن دريم ماشي إنه علم فربضان كقاعدة دونان سؤال شو هندلا دنك كلو ديك ميسا علم جاس ماشي أصلوجود دجانيو علم جاس أمانين أن مسلم هين بحينيا أمانين مسلمة بحينيا أيانتان تنبيوها أدو سكر داي إن معلمين رجع إني جوري تجان بالعان أما جبر حديقيان أيضا كل جند جوري أي جوكتو معلم كين أونية هاي أدبي أود على سؤالات كذا نوصل نقدين سداس كلام حاول على إن هايدي روح هذي بعشر قاعدة نيسو إنجليز إبرانيسو أما كسوهيل إبرانيسو أما لغات كلا ما يعني دروس إقراء قاعدة نيسو أساس مركب معلم نقال ماشي وتجيو لكن كله وحيانتان سوكر لين مدرسوين معلمين أونلاين كل شقية أما معلمين ستوس اسم متطوعين وجريها تجية ولا عيته دنا قاعدنية خويدي وحبريان قبله هذي وحبريان يعني مو ذا كرنو وقلدينهن أو يعني هل بيكو آدم ديكر لكن إن بدن قبله كل جودا مرولا قبو أي جريه ذا تجيان ومعلم علم الديني بحنية قرآن وبحنية ساسو كلا جبر بوحبريه هويدي أي سوقي آديسا ilmaheedii buu waxbaraya gabdho waxbaraya marka arimahaas oo ayanta way soo kordheen cilmiga halkaas ku faafiso ku sheegaysay cilmi ka duwanna meesha uu ku socdaa marka wax badan oo meesha ka dhacan waa naloo soo sheegaa waalid badan oo dacwo waan aragnay macallimiin badan oo dacwo oo hor guriga ka yimid waan aragnay soo dhaw shaqeeyay markaska Adwa Al-Huda wuxuu ugu bishaareeyay waalidka Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi qaas ahaan xaafadda Islii ee ubadkiisa la doonayo waxbarasho tayo leh in markasku uu soo kordhiyay fasal cusub oo lagu talagalay in lagu diyaariyo arday kooban oo lagu xifdisiinayo Quraanka iyo culumtiisa tafsiirka markaska waxa ka howlgala culumo khubaro ku ah Quraanka iyo tafsiirkiisa da'da ardayda la doonayo waa 8 ilaa 13 sano markasku wuxuu ku yaalaa wadada dheer ee Murtina Road qaas ahaan dhismaha Murtina Heights أركان مساجد كالهداية وحفا فاهين ديرية فضلا كوع لمبرادة شاشة كاقام مغضاء horta alxamdulilah Kenya joogna Nairobi weyn joogna ilaahay inuu mukallifin waxa ka soo baxaa macaahidka hablo farabadan timaado xaqi diinta in jaamacadaha waxa ka soo baxaa gaal iyo muslim ha yeeshaan dumar farabadan oo macallimiina ragana sidaas leeg marka anugu uma arko takalluf marxalad inuu gaaro gabadh marwa ama gabadh yaro gashaantiya in loo keeno qof aan isku jinsi ahayn yani inantu waa inan yar ninkan haduu noqdo waa nin gaala afwan maraaxil waanu la macaamilay waanu ku shakhsiyan la macaamilo ah inan yar oo ninkii wuxuu dhigay أما نينكي دروالك أوها ودم مشروع كلا أفري دم بيجا مركاياله إن أنتم ماله كليجيت دروالكون أما معلم كليجي ماله لكن ديت كان سدبا هرتا نمبر 1 مسؤول كا مركا إن أنتي أما قبضي أما بالعنتي وأنا لو كان قف إسكو جنسيين هذا نقطة قرآن هذا نقطة مال سبجي كذا كله وأنا قبض لو كان ناق لو كان مروة لو كان إنن كنا سيدا سلك إنكم معلمات مكبقية لقما يابو إنه تبشير لحي تبشير معلمات دبا وأنا وحبو أركين كذلك هو يده إني نفت هذا أي أقول له إنه نن أجنبية إن أنت هذينا كليجي الله فردي والله وقتكتو أيده قل لنا أي سوق ورده لقما في لقبر مؤمنة ده تاوها كسي درن ninka guriga leh ee hawsha ama waaba qalad sidee waa maxay diinta baraysaa gabadhaadi ama bilcinta oo nin u baraya laga yaabo ka fiiro waaweyn yahay ka daayar yahay ka qurux badan yahay ka cilmi badan yahay wa shaytaan uu jooga ma khala rajulun bi imra illa kana shaytaanu thalitha musamaha nin yanag meel moodo joogan illa shaytaanku saddexayo marka inaad fursadda nabi yuusuf ayaa amaan heli waaye soomaad garan marka cagskuna uu dhacay inaad marka ninkan inuu gurigiisa ka tago oo waliba uu raali ka noqdo waxaan ka baqayaa inuu ku dhaco sidii nabigu yiri la yadkhulu aljannata dayuth
صدح قول كعلية لا يدخل الجنة ديوث لا يدخل الجنة الديوث قف ديوثي كان هذا مقالي ومحج ديوث كمان كده النبي قال له ويدين وحيولي وانين آن يعني غير لهين آن كهنا سنين وحقولي جس كصعدة نبى إن أنتي سيلا فردية كليجت ما حاس كي سيلا فردية ولا شيء ما بقى درين ماله نقاس كنا ما أركيو غير دونا غير ده يوم حنا هنا سهل ده معقول كي ومن إيمان ماذا كميت وقرن حديث كي مقصد النبي قال سعد بن معاذ رضي الله سعد بن عبادة رضي الله عنه مركي النبي يقول صلى الله عليه وسلم هديني الناكتي سوي ما دو نكلو إن ده ماشي فردية إن وينو أفر مرخاتي الضونطة مكاسوري يا رسول الله ما نبى نقول ما ده ناكتي ده لابد اللي يقول حدوده مركزان بحا مركزان أفر نين ضونطة وفاجر كشيء سوور لما يصير مركز صار نقطة محاري مركز يقول والله بويد السيف الدبدة ده أيام كدي لي نينك هكا وفليو ولي السيف حقه هو رمها دبدة كدي لي يا بون مركز الصحابة دي بحون توجي والمياه ما حد كهرلسا نبي كي ولي أتعجبون من غيرة السعد والله هنا صاها يا غيرة دا أيات كيابسان والله أنا إني لأغير منه والله أغير مني مركا إنا يعني نين ولا دوام صور شقين يهرب كيبا نوصل تعبير يا أما قربها نشوقا ولا نحمل نحفر ليها نين كلنا نقوليس كشقي سنة يوم مشاريع كلا وكوتو ما هي وحكا قدرا نين بقولي صوق عليه ومصيبة إن أنت أما قبل يبكي يفعل ومصيبة كلا العقنا وانقصني ومصيبة صدحات يعني وحين قال الدرجات إلا العقد إنك سجى سينة يصمه وحاسود دم يسكسر الله ولا سجوا ولبا العقتنا وسيب حنا يدا مشكور إن دينهم تيدي كليجات خلود لقى شيء واد ما سنتين الحاس كي لا شوكتي واد ما سنتين العقد وكاسة نبت قليو بريتنا صون نقو شال مركب وحيابها صوكرة قبل مؤمنة دمروا لقى ما في ليو إن ير أو إن يعني عفد يشرف لقى ما في ليو نين مؤمنة وإلى كعب سنية لقى ما في ليو وحيابها أي نسكهفنو أي نكفوجانو محاد حشمة إن أنت هذا برس أوام محي هذا نين مغسلوك جلسي أما فرق أوفر صدق وتكتي محاد برس الله عليه واحد بري كرته أما دوق شيء كرته ميل متشر مركينها لقى عبسنا يتقوا الله في أولادكم وفي نساء قيقي الله كشرفه نمد سنة دان موضوعا أرولينيني هذا يوم سنة كان سان كوجس وجاري ونسنيري ما دام أدق لنتيد معلمين تينا كميتهاي واردنا آتهاي موضوعا وموضوع حساسية طبعا يعني ضد بدن بمعلمين بدن ومسلمين هينا أرن كان إن بدن إجلا هذا الشيء يعني مركان إسلام كأشرح معنيسة أي وحي أي كان أوبسيد إيجا عياران وإيجا دجان نيو هذا توشن بانك إيمت قبر بقول كلي جوكتا حكوا صبري مالن لو دوحي كنتي جوس بي كوب جوس بي كنتي مالنتي لبعض قددي بي كنتي أنت قيب كميدا maalinta saddexaad yani maxaan sameeyaa gurigaas awdagii la hadduu igu yima anoo jus cabaya guriga ka cabaya ama cunto cunaya maxaa meesha ka dhici kara bal arrinkaas ii macnayo yiri maxaa islaamkiina qof noocaas see loola dhaqmaa marka gaaladii yaaba cabsanayso haddii lagu xiro kaamirooyin meesha kuma xiro wax lagu oo kara ma jiro see xaalku yahay marka arrimahaas way soo kordheen sheekh aad baad u mahadsantahay talada ee tusaalaha wanaagsan haddaad wax baaqkiina ku daraysid waxaan ku darayaa inamada wadaadada ee Soomaaliyeed مش يو قود إيه الرزق يهم قريودن قلينا لون تهو قلينا لكن وحدات القرآن لقيسيد أما حتى عربي يوح لقيسيد السبجك حشمدي يو حشودكي يتين دينتي إلهيان لقى فوقان ده ركتين مركاين قريجي إنا نقول تشوكتو شغلها قادن كدقاق بلنا وحن كوكو قاضية متكون سيدنا هلسي وإلهي بابا بلنا قد قضوحي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب marka haduu shaqada uga tago ilaahay dartii ama u diido mid ka wanaagsan buu ilaahay siinaya waa ballan ilaah taana waanaaba meel ugu suulka u saaraya waa ilaahay ba qaaday ballanta marka waxaan leeyahay taa insha Allah ku darsada wallahu a'lam aad baad maasantahay sheekh Saciid Raage oo ku soo booqanay xaruntiisa iskuulka oo maamulaha ama gudoomiyaha uu ka yahay Olive Crescent International School oo quruxdaan aad arkayso iyo fadhigan quruxda badan nagu casumay aad iyo aad buu u mahadsan yahay sheekha cilmigoona siiyay iyo aqliga iyo garaadka noo soo tabarucayna aad baan ugu mahad celinaynaa sheekh miisaanka xasanadka Allah ku saaro
waad ku mahadsantahay waxaan rajaynayaa waalidka ama walaalaha Soomaaliyeed ama odayga Soomaaliyeed ee gurigiisa arrimahaas ka socdaana iyo cilmiga hore aad nagu soo faraqday saas oo kale toba inay ayakana wax badan ka qaadan doonaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.